iyagoo ka cabanaya laba arrimood. diyaaradihii ama duulimaadyadii ayaa hakad galay, madaxa ayaa la isla galay, shaqaaluhuna dibadbax nabadeed ayay dhigeen oo gudaha garoonka shaqo joojin ayay hal mar ay sameeyeen oo lagu baraarugay. arbaa diyaaradihii duulayay iyo kuwii soo degayayba wax kala haga yaa la waayay. sidaad aragtaan muuqaalkaas, oday khabiis qaba oon u malayn dabcan inuu shirkadaha ka tirsanyay ayaa diyaaradii hagaya isagoo khabiiskiisii iyo cumaamadiisii madaxa ugu duuban tahay. bal waan dul istaagi doonaa waxyaabaha ay ka cabanayaan shaqaalahaasi, iyadoo dhanka kale maanta la hadal haya magaalada muqdisho iyo maraykan oo isku nooc ah. maraykan baa shalayto waxaa hakad galay amaba dibadbax sidan oo kaleeta sameeyay 7,000 oo duulimaad shaqaalahoodii baa hakad galay. waa 7,000 oo duulimaad sabab la xiriira cabasho ay shaqaalaha qabeen. tiibaa maanta magaalada muqdisho ka taagan, waan dul istaagi doonaa. dhinaca kale maanta waa 11 November, bishan hadda aynu ku jirno 11keedii weeye. maamulka Somaliland waa kay u qabteen shirkadaha Soomaaliya soo mara ama Somaliland hawadeeda isticmaala 11ka bishan in la dhaqan gelin doono diyaaradii amarka Somaliland diida in ay la kulmi doonto tilaabo cawaaqib xumo ay ka dhaxasho. haddaba hawada Soomaaliya maanta waa sidee? hawada Soomaaliya waa sidan, waa muuqaalkan aad u jeedaan ee dushayda marhaya. noocaas ayay hawada Soomaaliya maanta u dhigan tahay. bal waan dul istaagi doonaa waxyaabaha ka dhaqan galay, awaamirtii ka soo baxday dhinaca Somaliland iyo weliba wadamo waaweyn oo digniino soo saaray isla markaana ugu baaqay dadka u baxaya Soomaaliya ama Soomaaliya aadaya in ay qaataan fiisaaga Soomaaliya. waa awaamir cusub oo weliba dowladihii Somaliland ay ku xisaabtamayeen ka soo baxay weeye. iyadana waa idinla wadaagi doonaa. soo dhawaada, aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay garoonkaadan cadde ee magaalada muqdisho. maanta waxaa ka dhacay dibadbax ay dhigeen shaqaalihii garoonka ka shaqaynayay. gebi ahaanba maanta waxay sameeyeen dibadbax ama shaqo joojin daqiiqado ama saacado qaadatay ayay sameeyeen. shaqaalaha waxay ka cabanayaan laba arrimood. kow, mishaar la-aan, mishaarkoodii iyo xuquuqdoodii oo aysan qaadanin waa kow. laba, shaqa ka joojin aan loo marin habraac saxa ama habraaca sharciga aan loo marin, oo markaasi qofka looga joojinayo in qof qaraabadiisa ehelkiisa uu ku bedesho oo hab qabyaaladaysan ama qabiilaysan markaasi shaqada looga joojinayo. waa arrin Soomaaliya dhibaato badan ku aweeye run ahaantii, in meel walba la qabyaaladeeyo oo waxa weeye shaqadii loo sinaan waayo bulshada Soomaaliyeed ay u sinaan weydo, amaba nin jeclaysi, eexo iyo wax noocaasa qofka shaqada looga joojiyo. qof xirfadla ah oo shaqadii yaqaana laga joojin waxaa la keeni mid geela hadda ka imaaday. waxyaabaha Soomaaliya haysta xamar basana maaha, waa Soomaaliya oo dhan, xataa maamul goboleedyada dalka meel walbay ka jirtaa, meel walba Soomaaliya kamid ay ka jirtaa. waa dhibaato badan, ummadda Soomaaliyeedna dhibaato ay ku tahay. mishaar la-aanta, dhanka mishaar la-aantana musuq maasuqa ayaa sabab u ah. sababtoo ah garoonka lacagaha kasoo xaroodo waa malaayiin. sabab ay lacagtooda ku waayaan ama mishaarkooda ay ku waayaan lama garanayo, suurtagalna ma noqonayso. waa isha dhaqaale ee ugu dhaqdhaqaaqa badan weeye Soomaaliya garoomada ama garoonka magaalada muqdisho. marka suurtagal maaha, mishaar bay waayeen shaqaalehe, lacagtii waa la musuq maasuqay oo waa la cunay. marka shaqaaluhu waxay ka cabanayaan mishaar la-aan. waa labadaasi qodob ayuu maanta horta shaqo joojintii ay ku salaysnayd. daqiiqado kadib ama saacado kadib oo hakad ay duulimaadyadii galeen, adugu waa la afgartay, shaqaalihiina shaqadoodii ayay hadda haystaan. walow walaac iyo cabsi ay jirto oo shaqaalahan dadka soo abaabulay, micnaha ilaan qof walba iskama soo baxayo waxa weye shaqo joojinta waxa weye iskagama soo toosin. qaybunba abaabushay, walow qaybtaasi abaabushay halis weyn ay wajahayaan, walaac badan ay qabaan. haddanana hadda isafgarad hordhaca ayaa laga gaadhay xaaladii saaka ka dhacday gudaha garoonka. intaa marka laga soo tago, maanta waa 11kii bishii November. waa taariikhdii Somaliland ay u qabatay shirkadaha Somaliland, shirkadaha duulimaadyada Somaliland taga iyo kuwa hawadeeda maraba. shalay waxaan idinla wadaagay muuqaal ay leeyihiin waxaan kaa soo wacaynaa jamhuuriyadda Somaliland 11ka bisha sida iyo sida iyo sida iyo sida haddaad samayn weyda iska jir diyaaradaha laleeyahay la wacayo. maanta haddaba hawada Soomaaliya waa sidee?
hawada Soomaaliya maanta sidii hore ayay u shaqeynaysaa dowladda federaalkana ka mas'uul ah wax ilaa iyo hadda u dhaqan galay dhinaca Somaliland oo awaamirtii ka soo baxdayna ma jiro haba yaraade wax awaamira oo maanta u dhaqan galay ma jiro intii record la daartay oo meel la fadhiistay ayaa waxa la yiri فلان متربان waxa weeye hal laba shan lix toddoba sideed RT waxaan ku sheegaynaa hawada Somaliland inay iyadu xukunto inay sidan tahay cidii soo martana iska jirto talaabada ayaa laga qaadi doonaa waa inaad u hoggaansataa awaamirta fiisa dalku galkal ma yeelayno maanta waxa la sugayaa marka maxaa dhici doono xaalku sidee ayuu noqon doonaa hawada Soomaaliya waa safe maanta wax dhibaatana kama jirto awaamirtii dowladda federaalka ayaana ka shaqeynaysa waa warka xaqiiqadiisa weeye wasiirka duulista iyo hawada maamulka Somaliland oo maanta war soo saarayna wuxuu yiri ma ogelin fiisaha dalku galka laguma imaan karo Somaliland talaabo sharci ayaa ka qaadayna cidii ku soo gasha warkaas waxa ka dambeeyay iyadana war kale oo ay soo saareen dowladda Ingiriiska ama UK oo ayagana lagu amray muwaadiniintooda inay iska hubiyaan baasaboorada in expire date-kooda uu ka harsan yahay 6 bilood wax ka badan sidoo kaleeto in ay qaataan e-visa waliba waxay dhaheen waa khasab ama waa sharci inay e-visa-ga Soomaaliya ay qaataan dadka u safraya bay dhaheen Soomaaliya including Somaliland bay dhaheen Somaliland bay ku dareen waa inay qaataan bal e-visa-ga way ku qasban yihiin bal maanta marka war baa u yaal